ree awdala oo boqolaal gaaraya oo hubaysan oo hub iskala hor yimaado oo isoo fadhiistaan uma maqal laakiin maanta way taala maanta xeebta waqooyi ee awdal ciidamo hubaysan oo boqolaala oo reer iska soo horjeeda oo dhaqan aan jirin ahayn ayaa soo fadhiya meel walba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نغدق وهنونسان دادكنا هنونية دمان دادك الصومالية دا برنامج كقفاعو كدقيسان يا راديو بورمي كنا داوانا يا صومالي كنديان تي في برنامج كقفاعو ما انتو امالينا حدا بيشم مارج طبان لبقون 24 dadka Soomaaliyeed caalamka tacaladiisa jooga waxaan halkan ka gaarsiinayaa in bari ay tahay Ramadaan oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyo oo Ilaahay ugu mahadnaqayno Ilaahay na gaarsiiyay ee caafimaadka inagu gaarsiiyay aynu mahad Ilaahay ka gaadhaleena ummadda Soomaaliyeed aan gaarsiinayo in caalamka tacaladiisa meel walba barnaamijkan kala socdaan bari ay tahay haddii ilaahayado bishii Ramadaan dadka Soomaaliyeedna uu baaqayo in ummadda Soomaaliyeed ogaato labada shay ee camalka lagu aqbalay inay yihiin ikhlaas ilaahay dartii iyo sunnada waafaqsanya camalkaagu si uu noqdo maqbuul waa inaad labadaa ku dadaashaa. إلهينا يلي ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمد الصوماليات علماء إن بدن آد بيوغا هذا الشيء وحنا أمد الصوماليات باقيا إن إلهي أو إنه لما يستروا عمل مقبولة وحنا أمد الصوماليات قاسين يا برنامج كنا وبرنامج دينية وكسابسا dadka danyartaa in la caawiyo aydan barnaamijkan meelo kala duwan ka maqli doontaan. haddaba dadka Soomaaliyeed barnaamijka dhageysanaya iyadoo aanay gaarin Ramadaan maanta waxaan rabaa barnaamijka inaan nagala wadaago in ummadda Soomaaliyeed maanta u baahan tahay inay gacmaha isqabsato in midnimada laga shaqeeyo. ummadda Soomaaliyeed ay tahay victim aynu leenahay cadow magacyo kala duwan leh midabo kala duwan leh ummadda Soomaaliyeedna u tashaday midnimadeediina khatar ku jirto madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh aynu ku garab taagnaano midnimada uu wado iyo dowladda Soomaaliyeed u baahan in gacmaha la isqabsado. dadka Soomaaliyeed waxa la wadaagayaa gobolka Awdal waxa uu ka mid yahay 18 gobol waa gobolkii midnimada ummadda Soomaaliyeed ay ka soo uunkantay midnimadu magaalada Awbarra markay odayaashii ka yimaadeen magaalada Boorame yimaadeen Gabiley Hargeysa ilaa Laascaanood midnimadu halka ay ka timi asalka waa dhanka weey. maanta waxaad ogtihiin nasiib darrada ku hugatay ee ku habsatay ee arkaysaan waxaad ogeydeen jabhadii asnam xabashi bay u soo kaxaysatay waxay ku qabsatay xoog waxa jiray nin gadabuusyo janan ahaayo aad u caqli badnaa ilaahay u naxariistay waa Yuusuf Talan. hadalladiisii waxa ka mid ahaa oo ilaa imika taariikhda lagu xusi karaa waxa uu yidhi maalintuu gadabuusi la hadlayay janankaasi ilaahay u naxariistay gadabuuso wuu yidhi hubkaaga ha u dhiibin Isaaq qabiil hub u dhiibaa ma jiro. maalintii qaladkii dhacay waa idinka arkaya maanta in maamul ay iyagu leeyihiin intay isku bedeshay qola gadabuusigii la mida oo midabkoogii leh oo luqadoodii ku hadlaya oo calooshooda hadlaya hor yaacayaan iyagiina ay yihiin kuwo daawanaya gobolkii Awdal uu khatar ugu jiro. maanta la aragteen dhulkii Soomaaliyeed in xabashi lagala heshiiyey waxaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiinayaa
midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqadas dalkan ummadda Soomaaliyeed waa 18 gobol weey waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa shacabka gobolka awdal jooga iyo dalka gudihiisa iyo dibadiisa in bacda Ramadaan hadii Ilaahay yiraahdo awdal state mid noqon doonto magacyada awdal state movement iyo awdal state-na laga guuri doono midaysan aan uga guuri doono waa hadalana socdaan midnimadana laga shaqayn doono iyaga iyo beesha Ciise oo nagu baaqayo inay yihiin dadan kala maarmin wada dhashay in laga shaqeeyo in wax la wada yeesho midnimadiina lagu didaalo waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in la garab istaago oo midnimada garabkeega la nagu garab istaago waxaad ogtihiin gobolkan awdal in lagu haysto dhaqaale lagu haysto awood ee aanan lagu haysan inay yihiin dad raali ka ah waxa ku jira sababtu waxa weeyaan waxa saaran xayiraad dhaqaale ayaa saaran xayiraad horumareed inay horumarto ayaa saaran waxaad ogtihiin dalka Somaliland 9 qof oo isku reeraba loo shaqeeyaa airport gobolka awdal ka furan ma jirto dikaday leeyihiin ma jirto kuwa aad maqashayna waa la soconaanayna calooshooday hadlayaan aqligooga ma hadlayaan wardamoonu ka dhageysanaynaana ma jirto ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa in lana taageero oo lanagu taageero awood dhaqaale iyo military hadba sida ay dawladda Soomaaliya noogu garab istaagto iyo dawladda Djibouti in gobolka la sugo bacda Ramadaan hadii Ilaahay dadaan ugu baaqayo in midnimada laga shaqayn doono kuwa midnimada diidana Ilaahay qul muutu biqaydikum aradina u dhinta ummadda Soomaaliyeed inay midowda waa waajib waanigu Xaamud Sultaan Cali Cilmi Sultaan salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh